أي راعيسو ومد جوكتا شغلدا أودن هل حرف بالوتريا مركا مانسو لسماينيو مانسو وليبا تيراديدا على نو أوغونيا أيي ليداهي metric systemka iyo generalka poetryka marka loo eego maanse kasta oo la tiriyaa gabay maaha tarjumaada ay dadku qaldaan poetry ayay ku macnayaan gabay verse or poetry waa maanso gabay waa mid keliya oo ka mida maansooyinka oo isagu leh tirooyinka aan sheegayo gaarna ka ah oo ah kan ugu balaaran oo ugu tira shaqalo dheer oo tiraab kaale haddii aynu abla meel gola ah sida jiiftada masafada buraanburka giishka madiixa sitaadka abaaya sitayda ama abaaya oo saddexdaasu iyagu ay isku macno yihiin waa heesaha وسوغانتا هوانكا تن أمعداء مركي دينتا إسلامكو أي عهيجان نصوغ الشيء مركي ربو أي اسكوغونيين أو أي قصائد كدينيجا أكو مديحين أو إيغو كو مرغامين مركي لقاقدي برشادا عربية أو آني قولها قصائد كدينيجا أصميسان أيي نقضين كوي أبوريين أو أبورا af Soomaali maanso diineed oo magacyada mid walba deegaankeeda ula baxa oo u apiil gareeya waliba asxaabaha haweenka ah iyagoo jinsigooda carabaabaya oo abaaixaado haawo iyo faadumo rasuul oo maalinta bacadka kululbiya qabow nafsi oo maalinta la isxisaabayo nooxil qari geeraarka waa mid gooniya oo ammaansa badanaa u gaar ah fardafuulka iyo dagaalada u badan gabayga iyo guulowgu waa labo isleh oo ay luuqdu kala bedeshay maansooyinka kale mar walba waxay ku lamaan yihiin wax kale sida ciyaaraha hiddaha heesaha ku jira oo dhammi waa maansooyin gaar ah oo ah heesa duleed aynu u naqaano sida qaybta isku midka ah ee sacab ama jaandheer ama batar ama walasoqo maansada ku jirtaa dhammaan waa jiifto nooca la yidhaahdo laakiin waxay leedahay hal shaqal oo jiib raac ah oo iyadoo la leeyahay siciid saalaxow nabad ay joogto haddii batar lagu heesaayo waxa uun raacayo siciid saalaxow nabadey waa isla jiiftadii oo keliya kama dogan karo in aan heeso duleedka daantada dheel wiglo hirwo saddex kuwaasna maansadooda idin tuso waa iga maqan yihiin kuwaan ugu jidayn lahaa miyuusiga moodaranka ee Soomaaliyeed ee qaraamiga aad dhegaysanayseen kuwaa dhaantada ayaa miisaankiisii laga sameeyey oo uu ka soo jeedaa waa rhythmka uu Bob Marley ka soo qaaday miyuusiga raagayga oo lagu magacaabay inuu dalka Ethiopia ka keenay beerey gabley shimbir bullo kabeebey saar iyo suurow iyo kuwa lamida mid walba ereyo miisaaman oo loo yaqaan cayaarta lagu cayaaro ayuu leeyahay sidoo kale haanta shiribka oo lagu shirbo shirbe oo mid kale ah oo laba degaan oo kala fog ayaa midna waxa loogu shirbay waa beydka qaalaha leh sanado ugu dambeysay oo aan ka shaqaynaynay wacyigelinta caafimaadka iyo barbaarinta ubadka ayaa cudur halis ahi adduunka soo galay markaasaa halku-dheeg dhaqanka Soomaaliyeed aydiska looga waayay waayada ka mid ah ayaa igaar baa fiijay markaasuu shiribkii wuxuu ku yidhi adduunka aydis aad jireen ibtaadu yaanay iilku geyn shirbe
هولبي وعيارت هرمدي دقال سيعيد مانسوين صدح لاب oo kala duwan bay leedahay shoobada iyo kuwa badan oo kamida ablaablaynta hadii aan in la ku sii daro hees hawleeda maansooyinka hawlaha lagu qabto dhammaan dadku waxay u yaqaaniin hees geel baa jirta waa run marka geel hadday taaliyo hadday tugan tahay waa tolleeyo looma kala tago uu sidaa ku leeyahay lo'da dadku waxay moodaan luuqda uunbaa ka duday miisaanku waa isla iyadii baadhisaha aan ku helay oo dambe xariixoodane xareediibuu xor laqaatiyo xoolo ku ahaa haddii looga luqaynayo geeliina sibaa luuqda loo oranayaa lo'dana si gooniya xariixoodane hubi xareediibuu hubi xor laqaatiyo waxa uu leeyahay waa isla halkii marka uu ri daajinayo riyo u heesayo codkiibuu kuu bedelay isla wasnigiibuu ugu heesayaa gabaymaadaa gobolka cidlaha soo galaa baxay hadduu lax u heesayo idaha isla miisaankiibuu kuugu heesayaa oo uu kuugu leeyahay uu u tiri galaalo ilmaha gosha geliyo galool u hadgey waa wada isku miisaan luuqdooda xoolaha loogu kala duwaa oo meesin walba kiisa loogu sameeyaa heesa hawleedyada kale ee beerfalidda marka uu ama yaambada wado ama uu irfigu ciidda gasho oo uu dibiga ku laba rogayo oo jibaarka uu sameeyo heesta uu u qaadayo waa jiib goonida ah marka badarka la hufayo marka la tumayo salsalka awrta loogu heeso awrkii marka loo heesayo haddana miisaankiisu jiiftuu kugu xaday oo cod kale u sameeyey marka uu awrka marka hore wuu maslaxayaayo rara jilicda markuu saarayo uu leeyahay deda yare dhadaa qubatay balandhaxanta kaa dido awrkii buu la hadlay wuxuu uga dhigayaa wuxuu saaray inuu dhaxanta ka biinayo goor dhowna waxa uu saaray rabadii kale iyo culayskii markaasuu u sheegay isagoo u cudur daarayo wuxuu leeyahay kuulama kacaynine waa kugula soo dhacay shayga culayskiisa markaasuu caynkii ku iijiyey awrkii baa cabaaday markaasuu yidhi sida caynku kuu gubay baa cagtu ii dalooshaa oo uu u dhigay in isaguna uu la xanuunsaday